Luca Magnotta, the killer who filmed everything. Luca Magnotta wanted to be famous, but not for acting, not for music. dilaagii dadka u dilayay si uu caan u noqdo darteed. Soo dhowaada daawadayaal, kuna soo dhowaada codka show. Mararka qaar rabitaanka ah inaad noqoto qof si zaa'ida looga yaqaano baraha bulshada ama caan ah, wuxuu noqdaa mid ka xoog badan xitaa naxariista bini'aadanka. Dadka qaar waxay sameeyaan muuqaallo qosol leh, qaarna waxay soo gudbiyaan challenges halka qaarkood ay reakshanno bixiyaan si ay caan u noqdaan darteed. Laakiin qofka maanta shaashadda noo saaran wuxuu doortay waddo kale oo mugdi ah oo aadan weligaa ku fikirin inaad samayso si aad caan u noqoto darteed. Luca Magnotta wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo jecel inuu baraha bulshada caan ka noqdo. Wuxuu bilaabay inuu muuqaallo iska soo duubo, uuna soo geliyo baraha bulshada isagoo rajeynayay inay dadka soo dhoweeyaan oo ay daawadaan. Laakiin markii uu arkay inaysan cidnadan ka lahayn, wuxuu doortay inuu noqdo qof aan la ilaabi karin xitaa haddii uu noqdo dilaagii ugu naxdinta badnaa gudaha dalka Canada. Intaanan qisada gudaha u galin, marka hore aan baranno dilaagan taariikhdiisa oo kooban. Luca Magnotta waxa uu ku dhashay dalka Canada, waxa uuna dhashay sanadii 1982. Ninkan noloshiisii carruurnimada ma ahayn mid aad u fiican. Waalidkii waa ay kala tageen isagoo yar. Markii uu weynaaday waxa uu isku dayay inuu noqdo nin actor ah iyo nin si weyn looga yaqaano social mediaha, balse arrinkaasi uma suurtagalin. Bishii May 2012 wuxuu bilaabay tillaabadiisii ugu horreysay ee uu aaminsanaa in uu ku noqon karo qof caan ah. Wuxuu la kulmay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Jun Lin. Jun Lin wuxuu ahaa arday u dhashay dalka China, wuxuuna deganaa dalka Canada. Luca wuxuu saaxiibtinimo been ah la sameeyay Jun Lin, wuxuuna ka codsaday inuu ku casuumo gurigiisa si uu ugu sameeyo martiqaad heer sare ah. Luca wuxuu gurigiisii ku sii diyaarsaday kaamirooyin si uu u duubo qaabka uu u dilay saaxiibkiisa Jun Lin oo aanan waxba ka ogeyn arrinka. Markii uu u imaaday saaxiibkiisii Jun Lin, albaabka guriga ayuu ka furay, aadna waa uu u soo dhoweeyey. Waxyar kadib waxaa dhacday inuu kow ka siiyey saaxiibkiisii, cadcadna uu u jarjaray qaybo ka mid ah jirkiisa, isagoona ku riday sanduuqyo uu horay u soo diyaarsaday. Hana ilaabin, inta uu waxaa samaynayay oo dhan, muuqaal ayuu ka duubanayay. Kadib markii uu falkaa geystay, ninkan ma uusan isku dayin inuu ka dhunto gudaha waddanka. Markiiba wuxuu bilaabay inuu fariimo u diro muuqaaladiina ku faafiyo baraha bulshada, isagoona ku faanaya waxa uu ku sameeyey iyo dilka foosha xun uu u geystay saaxiibkiisa Jun Lin. Maalin kadib, booliska waddanka waxay heleen sanduuqyo ay ku jiraan xubno ka mid ah jirka bini'aadan. Dilaagii dilka geystay wuxuu muuqaallo iyo fariimo u soo diraa mar walba warbaahinta, isagoona ku soo qoraya, hadda waxaad iga dhigi doontaan qof caan ah. Baaritaan caalami ah ayaa bilaabmay. Boolis, Interpol, FBI, dhammaantood waxay ku raad joogeen ninkan falkan geystay, haddana saxaafadda ku ciyaaraya. Dilaaga ayaa markii dambe iskaga baxay dalka Canada, wuxuuna aaday dalka Faransa, balse nasiib wanaag, booliska dalka Faransa ee magaalada Paris ayaa qabtay isagoo ku dhuumanaya hotel iska yar. Markii la xiray ninkan, waaba nin mucjiso ah, wuxuuba leeyahay, hadda dunida oo dhanba way i taqaanaa, in lay xirana waa xaq ayuu leeyahay. Micnaha ujeedkayga waan gaaray ayuu ka wadaa. Ugu dambayn, dilaagan waxaa la soo saaray maxkamad, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. Luca Magnotta wuu helay caannimadii uu raadinayay, laakiin wuxuu waayay xorriyaddiisii. Haddii aad ka heshay qisadan, nagu soo biir, like-na noo saar muuqaalka si aan u soo badiyo muuqaalada noocan oo kale. Mahadsanid.